wafdi ballaaran oo ka socday qurbajooga xisbiga kulmiye oo wehelinayeen odayaasha iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanka Sibidley ayaa maanta ololaha xisbiga kulmiye kala qayb galay bulshada ku nool deegaankaasi. Dadweynaha ku nool Sibidley ayaa si ballaaran u muujiyay xuduudda taageero u hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, iyagoo qurbajooga deegaankaasina ay dhagax dhigeen dhismayaal ka kooban 3 galaas oo lagu kordhin doono dugsiga hoose dhexe ee Sibidley. Odayaasha waxgaradka iyo dadweynaha ku nool deegaankaasi ayaa sharaxay sida ay u taageersan yihiin xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, isla markaana codkooda siin doonaan murashax Muuse Biixi Cabdi. waxaana hadaladoodii kamid ahaa magaalada waa Sibidley waxa weeye xisbigaan ku soo tacabnay awoodeedii horaan isku geeyno waligaan soo ahay maanta meelaan kaga laabano iyo waxaan ku dhaliilo ma hayno aanu codkayaga iyo xuduudeeda la garab taaganahay xisbiga kulmiye markii uu wadanka qabtay isagoo dhulka yeelay buu daruuraha geeyay. waxaan ku rajooynaa maantana inuu isaga ku soo baxo Muuse Biixi Cabdi intuu daruuraha ka qaado xidigaha gaarsiiyo. xisbiga wadani wuxuu ku ololeeyaa wadanku isbedel buu baahan yahay, wadanku wuxuu hayaa wada cad oo laami ah. marka xisbiga wadani wuxuu doonayaa intuu wadada cad ka duwo inuu jararka iyo qawiyada iyo qardajeexayna mariyo Soomaa. taa ka yeeli mayna jid cad baynu haynaa. xisbiga aynu ku tacabnay ee horumarka gaarsiiyay kaas baynu soo saarayna. magacaygu waa Farxiye Yaasiin Cismaan, waxaan ka socdaa garabka ururka haweenka ee guriga kulmiye ee Sibidley. waxa ay ka midaysan tahay ururka xisbiga kulmiye mana soo kulmiye manin kulmiyaan nahay caruur iyo ciroole iyo dumar iyo haween iyo dhalinyaro dhammaan waxaan nahay xisbiga kulmiye. 3 galaas baa la hayaado la dhagax dhigayaa maanta. waxa la doonayaa saldhig dawladda qaarkoodna aanu ka wada hadalnay. xanaanana ma leh. waxaanu leenahay inuu xanaano iyo dhakhtar la baadi doono. xagga dawladdan ka hadlayaa, xagga qurbajoogan ka hadlayaa. xafladda wanaagsan baana lagu soo dhaweeyay oo la soo agaasimay. waxa la taageersan yahay oo la isugu soo baxay taageerada kulmiye. waa magaalo ilaa maalintii kulmiye la aasaasay aan kala baydhin ee kulmiye toos u ahayd. dhanka kale qurbajooga ka socda xisbiga kulmiye ayaa waxay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameystiri doonaan dugsiga Sibidley oo ka jira cidhiidhi. waxaana hadaladoodii kamid ahaa anigoo marka hore aan isu sheegay qurbajooga North America ku nool ee beesha ka soo jeeda Cabdilladan Wadaageed. waxa aanu halkan ku marinaa wafti ka yimi magaalada Burco oo u socda inay dhagax dhigaan 3 galaas oo lagu kordhin doono iskuulka Sibidley oo baahi aad iyo aad u far badan ay haysatay. waxaanu qurbajoogana ogeysiinaynaa dadka deegaankana in hawsha ay ka qayb qaataan. haddii aanu qurbajoognahyna maanta waanu midaysannahay alxamdulilah. oo deegaankan maanta iyadoo intaasoo nasabadoodba degan yihiin kumbuleed anigu iyadoo kumbuleed iyagoo isku dhan aan tilmaamayo meel kastaanu joogno maanta haddii qurbaa joogno waanu ka midaysannahay. Sibidley loo dhagax dhigay anigu ninkii dhisayay baan haysiyeelkii baan dhisayay 3 galaas xaggaa waxa u yihiin dib 6 mitir bay u yihiin ballacana waa 9 mitir. 3 galaasna waxaan kala bilaabay maahe hawshoodu way socotay lacagtoodii qaaraankoodii qurbajoogtu badankeedii way ururiyeen. waa Yalla Xasan Salabaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Soomaali News magaalada Burco.